asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal kusoo dhawaada xubintabintii wareed ee warbaahinta GMP production haddana waxaad kusoo dhawaataan wararka wixii saaka naga soo gaadhay guud ahaan dacalada dunida iyo geyiga Soomaalida wararkan saakeedii haynana waxaa ka mid ah golaha militariga Suudaan iyo hogaamiyaasha ururada rayidka ee horkacaya dibadbaxyada dalkaasi ka socda ayaa xalay ku heshiiyay dowlad ku meel gaar ah magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa waxaa la sheegay in halkaasi goordhow ay ka bilowdeen barnaamij xooggan oo looga soo horjeedo go'aankii ka soo yeeray wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka Puntland ayaa amar dul dhigtay shaqaalaha ajaanibta ah ee ka howlgala deegaanada Puntland daawadayaal kuwaasi waxay hayeen qodobada ugu doorka roon ee warkaan idin hayno haddana kusoo dhawaada iyagoo faahfaahsan أنا كبرنا دلك السوداني قلها ملتريك السودان يهجمياشا أورد الرئيد كه هركع يدي بحياة دلك عسيك السعودة أي حالي كهشي دولة كميل جارة أو مدة تحسن جده هو حكم ككوري جين توتا حكومة رئيدة أو بوحدة جنراليات الآتا أو كميدة كلها سرقة ملتريك حتى معاملة السودان أي ورياش أو الشيخي حالي استخدي ده كتب إن أي كهشيين صدق سنة أو دولة كميل جارة waxaa kale oo uu sheegay isla maanta in ay soo saari doonaan heshiiska kama dambaysta oo u dhaxeeya militariga iyo isbaahaysiga xorriyadda Suudaan ee hogaaminaya kacdoonka shacabka heshiiskaas ayaa waxa ku jira in labada dhinac ay ka heshiiskaas ayaa waxa uu sheegaya oo ku jira in labada dhinac ay soo dhisaan golaha wasiirada cusub iyo golaha baarlamaanka xubnaha baarlamaanka ayaa saddex markii loo qaybiyo laba qayb ka imaan doonaan shacabka Suudaan ay waxa xukuumiyay golaha military tan iyo markii xukunka laga tuuray madaxweynihii hore Umar al-Bashir bishii Abriil ee sanadkan ku jirno dhinaca kale wararka naga soo gaaraya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa waxa ay sheegayaan in halkaas goordhow ay ka bilaabmeen barnaamij xooggan oo looga soo horjeedo go'aankii ka soo yeeray wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Mudane Goodax dad u badan arday dugsiyada sare ee Gaalkacyo ayaa isugu soo baxay bartamaha magaalada Gaalkacyo kuwaasi oo si weyn uga soo horjeeda go'aankii wasiir Goodax Barre uu ku joojiyay kuna baabiyay imtixaankii shahaadiga ah ee u socday 13500 arday oo Soomaaliya sawirro laga soo qaaday arday banaanbax ka bilaabay Gaalkacyo ayaa muujinaya inay wataan dharka iskuulka ay wax ka bartaan ee ku yaala halkaasi isla markaana waxa ay yihiin kuwa aad u careysan shalay magaalada Muqdisho iyo qaar ka mid ah gobolada Soomaaliya ayaa waxa barnaamijyo xoogan ka dhigay arday ka soo horjeeda go'aankii habeen hore uu ku dhawaaqay wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya Abdullaahi Goodax Barre kaasi oo ah in gabi ahaan bal la joojiyay imtixaankii mideysnaa oo ay qaadisay dowladda markii qaar ka mid ah maadooyinka loo helay qaab qish ah dhinaca kale wasiirka wasaaradda waxbarashada ayaa sheegay in imtixaanka dib loo gali doono 27 bisha May oo ay naga xigaan maalmo aad u kooban wali waxaan ku guda jirnaa wararka naga soo gaaraya Puntland wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka Puntland ayaa amar dul dhigtay shaqaalaha ajaanibta ah ee ka howlgala deegaanada Puntland kadib war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda war-saxaafadeedkan ayaa dhammaan waxa lagu amray shirkadaha iyo hay'adaha kala duwan ee ka howlgala deegaanada Puntland in ay muddo bil ah gudaheed ku soo gudbiyaan xogta shaqaalahooga oo dhameystiran wareegta ka soo baxday xafiiska agaasimaha guud ee wasaaraddaasi Axmed Maxamed Cabdalle Tigana oo lagu tixraacay xeerka shaqaalaha rayidka ee Puntland ayaa hay'adda lagu amray in aysan shaqaaleyn karin qof aan hab sharciga waafaqsan soo marin